بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أرضي مركلة رمضان كريم ومقعي ومصطفى عبد برخد وحين قادنا مادة امتحانها هاي ICT أما Information and Communication Technology وحين قادنا chapter كل بعض lesson 2 chapter كيس كل بعض chapter كل بعض إنه ما أنت هرك سوق قادنا 10 كيس كوبات وحين قادنا ما أنت 10 كيس لبعض ما أنت chapter كأنه قادنا وحلا يرهذا Introduction to Communication Introduction to the computer. Sorry, warbixinta inta badan ama waxaynu warbixin ka bixinaynaa waxa la yiraahdo computerka baynu sheegi doonaa markaas. Lesson-kan ama lesson-ka goorey lesson-ka aha waxaynu ku soo baranay computerka waxa la yiraahdo components-kiisa waxyaalaha uu ka kooban yahay oo soo niri inta badan wax desktop-ka ee monitor-ka function of monitor, keyboard, mouse, flash, speaker waxaasaynu soo sheegnay. Casharkeena labaad maanta waxaynu qaadan doonaa meesha idinka muuqataba computers noocyada tables beli marka tables of computer baynu qaadan doonaa inagoo inta badan sameyn doona ama u yeeri doona afar computer afar tape inta badan inta common ka la isticmaalaa waa afar tape ama waa afar nooc marka inta aynu qaadano ardaygu waxa uu awood u yeelan doonaa kow inuu sameyn karo wadaada tables of computer noocyada computerska iyo waxyaalaha yihiin inta loo qaybiyo magacyada la yiraahdo waxaas oo dhan soo kala pointiga labaad waxa uu ku qaadan doonaa using of supercomputer waxyaalaha loo isticmaalo inta badan ama isticmaalka supercomputers mainframe computers mini computers iyo microcomputers oo kamida types of computerska pointiga saddexaad waxaanu qaadan doonaa wax la yiraahdo different kind of computer around the world adduunyada caadiga ee macnaha computerada kala duwan ee yaala iyo siyaabaha u shaqeeyaan ugu dambeyntii intaas oo ardaygu awood u yeelan doona markaynu chapterka u horeeya ama chapterka qaybtiisa labaad ee types of computerka aynu qaadan casharka haddaynu si toos ah u bilowno waxa ku qoran tables of computer waxaan leenahay computerada marka aynu sheegayno inta badan waxaanu u qaybin doonaa afar qaybood inagoo ku saleynayna the different types of computer according their size waxaanu sameyn doonaa inaynu u qaybino size-ka computerka size waa maxay waa xajmiga computerka speedka computerku ku shaqeynayo computerku intuu soo kacayo sidoo uu dameeyo waxaas oo dhan and data storages iyo xaddiga waxqaadkiisu inta uu leeyahay inagoo ku saleynayna saddexda point xajmiga computerka speedka computerku uu ku shaqeynayo xawaaraha uu ku shaqeynayo iyo storage data storageskiisa iyo waxqaadkiisa ama storagekiisu intuu leeyahay ba waxaan u qaybin doonaa afar qaybood waxa kamid ah nooc la yiraahdo supercomputer oo ah computerada kuwa ugu qaalisan uguna tayada fiican ugu speedka sareeya size-kooguna inta badan la yiraahdo waa size-ka ugu weyn data storage-kooguna inta badan waa data storage-ka ugu badan marka that's why baan aanu niri ama computerada kuwa ugu horeeya waxa la yiraahdo supercomputer waxa ku xiga kuwa ku soo xiga mainframe computers maxay yihiin sawirkooga iyo noocooga iyo soo shaqeeyaan casharka gudihiisa ku arki doonaa pointiga saddexaad waxa la yiraahdaa mini computer oo kuwa caadiga ah isticmaalayna si uu eegayeen waxyaalahaas oo dhan baynu eegi doonaa pointiga afaraad waxa uu yahay waxa la yiraahdo microcomputers kuna eegna waa kuwa mini computers ka sii yar waxyaabaha loo isticmaalo mid kasta definition gooniyan u sameyn doona marka hadii lagu raahdo maxaa ku kala saaraysaa computerradan ama stageska noocan maxaa ugu sameynaysaa tabeska noocan maxaa ugu sameynaysaa mar kasta waxaan ku saleynaynaa size-ka computerka speedka computerku ku shaqeynayo iyo data storageskiisa intaas haddana afartii computer ka ugu horeeyay qaadan doona waxa la yiraahdaa supercomputer waxa uu yahay sida uu yahay waa kaasi meesha idinka muuqda supercomputerska waxaanu leenahay are the fastest and the most expensive computer ama computers waxa leenahay waa kuwa ugu speedka dheereeya fastest oo speedka ku shaqeynaya waa dheereeya marka waa kuwa ugu speedka dheereeya sidoo kale maxay yihiin expensive waa kuwa ugu qaalisan oo inta badan yaa haysta dad gooniyo ba marka isticmaala meel kasta laga meelo marka sidoo kale waxaan leenahay are the fastest and the most expensive computer waa computerada kuwa ugu macnaha speedka dheereeya sidoo kale ugu qaalisan ayaa la yiraahdaa supercomputer these huge computers kuwan hadda aynu soo sheegnay waxaan leenahay used waxa loo isticmaalaa to solve in lagu xalliyo very complex science and engineering problems inta badan waxa loo isticmaalaa complex science-ku experiments-ka tijaabooyinka inta badan la sameynayo ba iyaga inta badan loo isticmaalaa
sidoo kale engineering problems ka dee waa injineerada caadiga guryaha noocan dhisaya maaha laakiin maxay yihiin dee waa injineeradii horumaray ee dhisay macnaha bridgeada waaweyn meelaha waaweyn ee moogtahay dhismayaasha inta la leeg dhismayaasha wadooyinku dhaxmarto moogtahay waa injineerada caadiga ahaa ee horumaray kuwaas inta badan isticmaala marka sawir ahaan waa ka meesha kaaga muuqda isagu waa very expensive waa very fast waana ka ugu speed ka dheereeya uguna qaalisan xajma ahaan size ahaana dee sawirkiisa waa ka garanaysayo intuu leeyahay that's why marka uu noqday the first one midka ugu horeeya ama ugu horumarsan marka super computer la yiraahdaa waxa intaas marka aynu ku soo koobaynaa definition-kiisa iyo sida uu shaqeeyo iyo sawirkiisa pointiga labaad waxaynu qaadanaa wax la yiraahdo mainframe computers mainframe computer kuwaasi waa kuwa ku soo xiga iyagu stage-ka labaad bay ku jiraan xoogay marka loo eego super computer-ka waa ka hooseeya haddana wax badan bay isaga mid yihiin sawir ahaan way idinka arkaya intii buu leeyahay sawir ahaan wax badan uma dhaxeeyo macnaha marka leenahay xajmi ahaan size-ka waxoogay way isku dhow yihiin laakiin kan isaga inta badan waxa loo isticmaalaa waxaan leenahay similar to super computer in many aspects waxaan leenahay sidoo kale super computersku waxay la mid yihiin waxyaalo badan bay kala siman yihiin marka loo eego mainframe computers marka computers are similar waxay la mid yihiin to super computer in many aspects waxyaalo badan bay kala mid yihiin mainframe computers inta badan are often iyaga used by waxa isticmaala by large organizationada waaweyn organization maxaa la yiraahdaa kambaniyada waaweyn warshadaha waaweyn shirkadaha waaweyn waxa soo dhan ba isticmaala large organizations sababta u isticmaalaan maxay tahay for bulk data processing inay inta badan ku kaydsadaan inay storing ku sameystaan daatada ay haystaan oo mar kasta daatadii ama organization-kii ama company-gu uu weynaado maxaa badanaya de waxa badan number of people ka shaqeynayay waa de organization weyn oo ka shaqeeyaan intaas oo kun oo qof marka daatadooda si aynu u kaydino de super computerska iyo laptopska iyo waxaan isticmaalnaa marka ma kaydin karaan marka inta badan iyaga waxay isticmaalaan large organizationska data storageska marka qaadkooda CPU-googa ama central process unit-kooga weyn marka waxay leeyihiin data processing wax inta badan informationada badan ama warbixinada badan markay bataan ay ku kaydin karaan marka qaadkooga iyagna weyn marka mainframe computer waa ka labaad hadii wax laga weydiiyo waxa la similar to super computer in many aspects waxyaalo badan bay isaga mid yihiin marka loo eego xagga expensive-ka qaaliga iyo speed-ka ku shaqeynayo soo kale waxa leenahay iyaga waxa laakiin loo isticmaalaa large organizations-ka inta badan waxa ay isticmaalaan to bulk data processing inay inta badan ku soo process gareeyaan daatooyinka informationada shaqaalaha marka ka shaqeynaya marka kaasina waa pointiga labaad waa qodobkii labaad oo ah types of computers-ka kiisi labaad midka saddexaad waxa la yiraahdaa kuwa la yiraahdo mini computers waa kuwa inta badan aynu aragno maxaa kamid ah waxa kamid ah laptopski desktopski kuwaas ka mid ah notebookgi waxyaalaha sawirkiisa meesha hoose kaaga muuqdo isaga hadii la waraad muxuu yahay computer that is smaller waa mid yar marka loo eego super computerski iyo kii kale mainframe computerski sidoo kale waxaan leenahay less expensive waa ka yar yahay waa ka jaban yahay marka loo eego mainframe computer iyo super computerki sidoo kale less power than waa awoodda ama speed-ka ku shaqeynaya waa ka hooseysa marka loo eego labadii markii hore aynu soo qaadanay super computer iyo mainframe computer marka muxuu kaga duwan yahay saddex shay muxuu yahay then smaller waa ka yar yahay waa smaller waa less expensive waa less powerful speed-ka ku shaqeynaya waa ka yar yahay maxaa la yiraahdaa expensive-ki maxaa la yiraahdaa lacagta la soo siinay waa yar tahay sidoo kale waxaan leenahay waa sidoo kale small kuwa kale meesha ka ahaayeen large marka computers that is smaller waa computer yar less expensive macnaha jaban oo lacag badan joogin less power than mainframe and supercomputer marka loo eego supercomputer iyo mainframe computerskiina waa ka awood yar yihiin mini computersku inta badan iyaga used for scientific and engineering computers computations waxa inta badan loo isticmaalaa business transaction processing engineerada inta badan yar ayaa designada ku sameeyay waa laptopski iyo desktopski waxa la business transactions ka kamida oo kambaniyada bankiyada organizationada iskoolada waxa soo dhan ba marka iyaga sidoo kale isticmaala wax ka sawir ama wax ka sheega dil waraadana waa ka sawirkooda meesha badan kaaga muuqdo marka hadii wax laga weydiiyo mainframe computerska kuwa la yiraahdo micro computerska waxa oranaysa are computers smaller than less expensive and less power than mainframe and supercomputer so kale are often used for scientific and engineering computations business transaction processing intaas oo dhan marka ardayda loo isticmaala pointiga kayna wixiga ama computerka typeska nooca afraad waxa la yiraahdaa microcomputer kuwaan maxay yihiin waa kuwa ugu yar
microcomputersku intooda badan waa kuwa ugu yar yar sawir ahaanna hadaa aragtaan waa kuwa meesha kaaga muuqda maxaa kamid ah smartphoneski baa kamid ah laptopski baa kamid ah iPadski baa kamid ah watchski saacadihi mobilada ahaa yar yar baa kamid ah kuwaas ayagna la yiraahdaa microcomputer marka leenahay iyaga aynu qeexan waxa leenahay se completely computer on small scale marka waa computer dhameystiran laakiin leh maxay scale yar scale-ku muxuu noqonayaa macnaha xajmiga inta uu ka kooban yahay waa mid aad u sareysa oo maxaa kamid ah smartphone-ka aynu isticmaalno mobilada laabsalaxa inta badan isticmaalna kamid ah kuwaasi soo kale designed by kuwan maxaa loogu talagalay microcomputerska for use by one person at a time qof waa isticmaali kara oo PC inta badan desktopska ama laptopska hada aragteen waxa ku qoran PC maxay tahay personal computer marka leenahay personal computer maxay tahay macnaha waxa loo design gareeyay inuu isticmaali karo ayo hal shakhsi hal qof oo u dhiibi kartaa laakiin inta badan computer isku xiran oo moogtay company dhan ama dad badan isticmaalayaan ma waa maxay waa computer qofku meeshiisa la soo fariisanayo oo isticmaalayo mobilada kamid ah waxa soo dhan kuwaas marka la yiraahdaa microcomputers waxaan leenahay now primarily coded waxa la yiraahdaa sidoo kale personal computer oo u taagan PC hadaa PC aragto maxay u taagantaa lagu raahdo waan garan karnaa marka waxa la yiraahdaa personal computer oo inta badan waxa loo design gareeyaa waxa lagu talagalay inuu isticmaali karo ama uu lahaan karo ama information iyo data ku shuban karo waxa la yiraahdo one person marka microcomputersku maanta kadib hadii wax laga weydiiyo waxa leedahay completely a computer on small scale waa computer dhameystiran size-kooguna uu yar yahay loogu talagalay for use by one person inuu isticmaali karo hal qof at a time waqtigu doona ama waqtigu qofku iska isticmaali karo microcomputer is now primarily called at personal computer soo kale waxa la yiraahdaa waxa lagu magacaabaa magaca loo yaqaan waxay tahay waa PC waxa aragteen computerka markaad furatay desktopka aadaba meel waxa ku qoran this my computer ku qoran ama waxa ku qoran PC oo ah personal computer sawirahaana waa kuwa meesha kaaga muuqda iPhoneska kamida laptopska kuwa yar yar baa kamida iPadska kamida mobilada aan isticmaalna kamida waxa soo dhan marka aynu oranna waxa la yiraahdaa microcomputer marka intaas waxay tahay afartii tape ama afartii qaybood aynu soo qaybinay computerska cashirkeena marka kaliya wuxuu ku saabsanaa sida loo isticmaalo ama afarta qaybood marka computerska inta badan loo isticmaalo arday meesha ugu dambeysay waxa ku qoran su'aalaha inoogu qoran su'aalahaas waxay yihiin cashirkeena inta aynu soo qaadanay baa ardayga laga rabaa marka aynu soo sheego ama uu ka soo jawaabo question-ka koowaad waxa lagu yiri list down waxa qortaa types of computer haddaan soo sheegnay marka bal afartii nooc baa marka qoraysa point-ka labaad waxa uu yahay maxay yihiin what are the microcomputers maxay yihiin sidoo kale waxa qoraysa what we use for microcomputerska maxay noo isticmaalnaa kuwa hore waxay mini computer maxaa la yiraahdaa kuwana waxay microcomputer maxay noo isticmaalkooda sheegaysa kuwaasna waa define garanaysa waa tape noocaasiya waxaas sheegaysa question-ka afraad what is PC stand for maxay u taagan tahay kelmadda PC la yiraahdo maxay u taagan tahay P for pen and C waxay u taagan tahay baa qoraysa question-ka ugu dambeeya draw in your notebook-aaga waxa ku sawirtaa ama qortaa supercomputer isku day inaad sawiri karto marka sawirka intaad qaadato supercomputer in buugaaga aad ku qori karto marka chapterkeeni labaad lesson 2 halkaas aan ku soo gabagabeynaa waxaan rajaynayaa arday inaad fahanteen assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh